waxaan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dagaal xoogan oo waxba la iskula harin ayaa saaka subaxnimadii hore ka bilowday deegaanka Dawacaley oo dhowrkii bari ugu dambeysay ay isku horfadhiyeen ciidanka liyu booliska ee dowladda deegaanka Soomaalida iyo maleeshiyaad ka soo duushay dhinaca maamulka Somaliland. khasaare xoogan ayuu sababay dagaalkaasi iyadoo ugu dambeynna magaalada Dawacaley ama tuuladaasi ay gacanta ku dhigeen ciidanka liyu booliska ee dowladda deegaanka Soomaalida. waan socotay dhowrkii bari ugu dambeysay u dhaxaysay odayaasha dhaqanka ee deegaankaasi iyo weliba saraakiisha ciidanka liyu booliska ayaa fashil ku soo ilaaday sida ay nagula wadaagay wararkeennii hore. kadib fashilkaasi markuu dhacay saaka subaxnimadii hore ciidanka liyu booliska dowladda deegaanka Soomaalida ayaa 3 ka galay deegaanka Dawacaley oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad argagixisa oo ka soo duushay dhinaca maamulka Somaliland. maleeshiyaadkan dhufaysyo adag iyo weliba markaasi goobo muhiima ayay ka deganayeen magaalada oo gabi ahaanba ay ka ilaalinayeen, laakiin ciidanka liyu booliska ayaa dhinaca maamulka Somaliland ka soo galay dhinacyo fara badanna waa ay ka weerareen. ugu dambeynna waxay sababtay in la jabiyo maleeshiyaadkii halkaasi isku aruursanaya argagixisada iyo weliba gawaari tira badan oo ay saarnaayeen odayaal la sheegay inay ka soo galeen dhinaca maamulka Somaliland maalmihii ugu dambeysana laga warqabay waxa halkaasi laga abaabulayo. sida hore lagu sheegay dagaalkan waa dagaal ku sareysan qadiyad dhuleed iyo damaca dadka deegaankaasi degan oo maamulka Somaliland ay rabaan inay jaho wareeriyaan isla markaana halkaasi gabi ahaanba uu ka dhaco dagaal ahli oo u dhaxeeya maamulka Somaliland iyo midka deegaanka Soomaalida. 3 tuulo oo ka tirsan deegaanadaasi ayaana la rabaa in markaasi gabi ahaanba lagu khasbo dowladda deegaanka Soomaalida inay u aqoonsato gobol madax bannaan, laakiin arrintaasi saa hore inuu ku sheegayba maamulka dowladda deegaanka Soomaalida iyo midka Ethiopia qorshahaasi way ka digeen wayna iska diideen in 3 tuulo loo raadiyo waxaysan ay mudnayn aysan haysanina dadka kaleeto ee la degan. gobolka Faafan waxaad moodaa maleeshiyaadka halkaasi lagu abaabulayo ee ka soo duulay dhinaca maamulka Somaliland ee lagu soo aruurinay deegaanka Dawacaley in maamul ahaan gobolka Faafan arrintaasi hore ay uga digeen isla markaana la wadaageen saraakiisha amniga. ugu dambeynna wixii ay ka digayeen ay dhacday oo in saraakiil la laayo ay halkaasi ay gaadhay. si kastaba dagaalkii maanta waxa uu noqday mid gabi ahaanba ay si weyn u haysato warbaahinta gudaha ee dowladda deegaanka Soomaalida iyo midka maamulka Somaliland oo labaduba la kala dhacsan ama la kala taageersan maleeshiyaadka halkaasi ku dagaalamayo haday noqoto dhinaca aan dhahay maleeshiyaadka argagixisada ee maamulka Somaliland iyo weliba sidoo kale ciidanka sida gaarka u tababaran liyu booliska ee u taagan difaacidda dalka iyo weliba daryeelida shacabka halkaasi ku dhaqan oo la rabo gabi ahaanba in lagu dul dagaalamo. magaalada Dawacaley waxaa gacanta ku hayo ciidanka liyu booliska ee dowladda deegaanka Soomaalida sida aad muuqaalada hordhaca ka daawateen ama aad baraha bulshada ka soo daawateen gawaari tira badan oo noocyo kala duwan leh ayaa halkaasi laga furtay maleeshiyaadka argagixisada ee ka tirsanaa dhinaca maamulka Somaliland. saraakiil sarsare iyo weliba sidoo kaleeto odayaashii abaabulaya dagaalka ayaana halkaasi lagu qabtay oo muuqaalada sidaad ka arkaysaan gabi ahaanba waxaa la qabtay odayaal qayb ka ahaa dagaalka halkaasi ka dhacayay gabi ahaanba la rabay in lagu waxyeeleeyo amniga iyo xasiloonida ka jirto dowladda deegaanka Soomaalida. si kastaba mas-uuliyiinta dhinaca dowladda deegaanka Soomaalida ee arrimaha ka hadashay waxay mar walba ku soo celinayeen inaysan taaka dhul dowladda deegaanka Soomaalida uu leeyahay inaysan cidna amni darro ka abuureynin, waana arrimaha markaasi keenay in ciidan tiro badan halkaasi la geeyo sifa ay usoo afjaraan kooxaha argagixisada ee waxyeeleynayo amniga dowladda deegaanka Soomaalida. ciidamo tiro badan oo ka tirsan kuwa maamulka Somaliland ayaa iyagana la keenay xuduudda kuwaasi oo iyagana dabacooda u yahay inay dagaalka ay taakulayaan argagixisada kusoo duushay dowladda deegaanka Soomaalida. ajidaha ay wataan ciidanka maamulka Somaliland iyo odayaashoodu lama garanayo, laakiin qorshuhu waa inay gabi ahaanba halkaasi khalkhal amni ay ka abuuraan oo gabi ahaanba iska horkeenaan bulshada walaalaha ee halkaasi wada degan. guud ahaan daawadayaal waxyaabaha kasoo kordho dagaalkaasi iyo weliba sidoo kaleeto arrimaha halkaasi ka taagan qaybaha dambe ee wararkeena ayaan idinkula wadaagi doonaa tan iyo intaan midka kan xiga ku kulmi doonana waxaa idinka tegaa sidaas iyo ammaanaan.